بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Walaal waxaan kusoo jirnaa casharadii waaweynaa oo ku saabsanaa kabaa'irta. Wax badan ayaan hore uga soo sheekeynay shirkigii iyo kufrigii waxyaabaha noocaas ka soo sheekeynay. In badanna waa noo dhiman yihiin haddii Ilaahay yiraahdo. Markaana waxaan wax ka oran doonaa haddii Ilaahay yiraahdo maalinta qiyaamay oo runtii ah arrin culus oo aad iyo aad ugu culus quraanka dhexdiisa. walaal quraanka wuu ka hadlay maalinta qiyaamay wax aan xisaab lahayn oo ka hadla runtii وعيد فربضان أيانا كسو أروري قفكي بينية أو إنكرا وحن جعلها مركا أرماهاس وحا كميدا إنا صوح سميشان كسو نقلية هدي لها يلهدو سيان أهرشان ريفرنس صحة وتكباري كرتان هداد أباهاتان لعلا أيضا يكون فيلان هل آيات والله باهنين أيضا فربضان إلا تيحو لكن هدنا وحيابها حق لك للدوين أيا القرآن كنا قطو صياه marka meelahaas inaan wax ka fiirfiirano waa loo baahan yahay meeshaan ilaahay wuxuu ku sheegay shaydaan uu soo dhaartay ibliis uu soo dhaartay wuxuu ku dhaartay inuu luminayo bani aadamka marka ilaahay meeshaan wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala suuradan leeyahay suuratu 7 ayada 20aad iyo ayada 21 walaqad sadaqa calayhim ibliis dannahu fattabacuuhu illa fariiqan min almu'miniin ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala ibliis malihiisii wax ma uusan ogeyn runtii uu maleynayay markuu lahaa waa luminayaa malihiisii rumay u noqdeen uu leeyahay ilaahay sababtu maxay tahay in yar oo mu'miniina ayuunbaa ka badbaaday intii kale way raaceen wamaa kaana lahu calayhim min suldaanin ilaa linaclama man yu'minu bilaakhirati miman huwa minha fii shakin warabuka calaa kulli shayin xafiid ayuu halkan ku leeyahay shaydaanku awood kuma lahan oo bani aadamku ku muquuniyo waxaan u ogolaana shaydaanku inuu howlgalo inaan kala hubino oo kala saarno kuwa maalinta qiyaamo rumaysan iyo kuwa shakigu uga jiro maalinta qiyaamo ilaahayna waxa weeye mid wax walba xafiid ah oo xafido weeye subxaanahu wa ta'aala waa ayada koowaad runtii oo cajiib ah oo ibliis ba hawshiisa loo sii daayaba ayba kow ka tahayba in la kala saaro qofka qiyaamaha xaqiiqsan oo rumaysan oo si dhaba u rumaysan iyo qofka shakigu uga jiro inuu ibliis howlgalo saasaa macnaha meesha ku taala suuratu alfurqaan ayadda 11 allah wuxuu ku leeyahay subxaanahu wa ta'aala bal kadabuu bisaacati wa actadna liman kadaba bisaacati saciiran saacadda qiyaama ayay beeniyeen ilaahay leeyahay qof kasta oo saacadda qiyaama beeniyana waxaan u ballan qaadan naarta saciira la yiraahdo inuu galayo markaas ilaahay meelahan ka sii sheekeynaya waxyaabaha cajiibka oo dhacaya oo naarta saciira markii lagu tuuro dadka oo beeniya saacadda qiyaama waxyaabaha ay samaynayaan idaa ra'adhu min makaanin baciidin samicuu lahaa tagayudan wa zafiiran meel fog ayaa laga maqlaa sanqarteeda meel aad u fog ayadoo karkarayso caraysan macnaha markaasaa weliba koox markii lagu ridaba meel ciriiriya oo lagu tuuraba waxay u yeerayaan shallaay oo idil ayay halkaas ugu yeerayaan laa tadcu lyawma thubuuran waaxidan wadcuu thubuuran kaiiran u ilaahay leeyahay markaas war hal shallaay u yeerinani oo macnaha hal mar hal shallaayine wax fara badan shallaaya sababta waxaa ladinka kari waayey rumeeya saacadda qiyaamaa ladinka kari waayey marka waad beenisiin maxaa marka aad sheegaysaan maanta taasna halkaasay oranaysaa oo saacadda qiyaama qofkii beeniya ayaddan waxay sheegaysaa inuu cadaab gelayo shakila ay tahay marka saasay waxay ku tahay kabaa'ir ku tahay khatar tahay okay saacadda qiyaame suuratul baqara ayaa sidaas oo kale ka hadlaysaa وwaxay leedahay wabilaakhirati hum yuuqinuun ayadaha ugu horeeya suuratul baqara maalinta qiyaama kuwa yaqiinsan ayay sheegaysaa ayadaasuna suuratul baqara ku jirtaa oo xataa rumaynta keligeeda waxa weeyaan muu ku filaad is leedahay runtii moogtahay waxaa ku jirta suuratul maxay hata ii sheegeen waxaan tegaynaa suuratul jaathiya ayadda 32 وإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين أي الله إلهي ما شانكو شيغيا والعياذ بالله هدي اللي يراهدو بلنت إلهي رون وي أو ساعة قيامة وي إيمانيسا شكنكم مجرو واحد أورين جرتين والساعة داس أنو ما هبنو ما أوجن ساعة إن إيمانيسا إن كليتو ما كلا نغان إن نظن إلا ظنا
shakiyaa nooga jira iyo malo unbaan u malaynayna inay imaanaysa u malaynayna laakiin ma xaqiiqsanin wamaa naxnu bimustayqiniin marka walaalayaal saacadda qiyaama inay muhiim tahay qofkii doonaya inuu ogaado aayadaha noocaan ah aqriyo sidaas ayuu ilaahay ku oranaya waidaa qiila ina wacda allahi xaqun wasaacatu laa rayba fiiha qultum maa nadri ma saacatu in nadunnu ilaa danan wamaa naxnu bimustayqiniin waaba ka shakisannahay dhihi jireen saacadda qiyaame oo xaqiiq uma ogin oo dadkaanu runtii maba inkirsanaynba saacadda qiyaame inay jirto laakiin inay xaqiiqo u ogaadaan ayay ka shakisnaayeen marka xaqiiqadii ayaan raadinaynaa marka qur-aanku wuu sheegay marka xaqiiqada saacadda qiyaame sida loo xaqiiqsan karo qur-aanku wuu sheegay waxaan tegaynaa suuratu zumar allah wuxuu tilmaama 2 shay oo qur-aanka meelo fara badan uga jirta oo oranayo 2 shay aad ku garanaysaa saacadda qiyaame siday u taallo ama tusaale kuugu filanba tusaale aad ku ogaa karto ku xaqiiqsan karto 2 shay ayaa naloo siinayaa meeshaan kow waxaa weeye markaan seexanno ee aan haddana hurdada ka soo kacna wey qof kasta maalin walba wuu seexdaa hurdadana wuu ka soo kacaa shayga kaleetana wuxuu yahay dhulka abaarsaday ee qalalan ee roob inta ku do ama la waraabiyo ay miruhu ka soo yaacayaan taasuna waxay tusaale kale u tahay bacthigu sida uu yahay sida uu noqonayo xaalka bacthigu marka qofka uu dhinto wuxuu la mid yahay qof seexday hurdo markii ilaahay u yeero subxaanahu watacaala uu yidhaha soo baxna wuxuu la mid yahay qof hadda hurdo ka soo kacay ama si kale haddii loo dhigo dhul abaarsaday ayuu noqonayaa qofkii macnaa naftaa ka baxday qofkii uu dhintay dhul abaarsaduu noqonayaa markaas markii ilaahay u yeero subxaanahu watacaalana waxay la mid tahay oo ay u eg tahay dhulkii roob ku da-ay oo nabaad ka soo yaacay oo dhulkii uu nabaad ka soo yaacay labada shay qur-aanka meelo fara badan ay ku jirtaa walaalayaal ayaddaana ku bilaabaynaa suuratu zumar aayadda 42 allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha wallatii lam tamut fii manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون أيها الله سبحانه وتعالى إلهي متك أفسد ويا نففك أدله مركز سيحدان والتي حين موتها الموت على قصو قادم معناها مركز لمن يسمى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى تي أو دورنا هايسته أنسوب علين tii ajasheedu aysan dhammaanna soo celiye oo qofkii ku soo celiye mar kaleeto arrintaasuna waxay aayaad u tahay iyo calaamado dadka fikiraya oo caqliga leh halkaas waxaan ka haysanaa tusaale weynaan ka haysanaa runtii tusaalaha labaad wuxuu noqonayaa ilaahay meesha wuxuu ku yidhi suuratulxaj aayadda maxay ahaato 5 yaa ayuha annaasu in kuntum fii raybin min albacthi inaa khalaqnaakum min turaabin uma min nudfatin uma min calaqatin آيات فربنا ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقرر في الأرحام ما نشاء آيات فربنا إلهي كشيكي هذا كشك سنتين بعثك تضو في شروح اللي كسمي وحا إلهي كسوة قتمي وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج نولك مركز واحد أركيسا نولكي أو عبارة أو قلالان هذه الروب كده نولكي ورغدغاقيا oo la waraabiyo wuuna waraabsamayaa biyaha galaya waa scientific runtii waxyaabo cajiib ah dhulku inuu nuuxnuuxsado oo vibration sameeyo waxaana ka soo baxaya miro walba oo nooc walba arrintaas waxay daliil cad u tahay dalika bi anna allaha huwa alxaq wa annahu yuxyi almawta wa annahu ala kulli shay'in qadir wa anna saacata la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fi alqubur ilaahay waxa qabriyada ku jirana inuu soo bixinayo ayay marqaati u tahay xaqna uu yahay mawdkana oo soo bixinayo labadaas shay laba calaamadood cajiib ah weey waxaan tegaynaa suuradda la yiraahdo yunus aayadda maxay ahaato 45 ilaahay wuxuu leeyahay wa yawma naxshuruhum ka'an lam yalbathu illa saacatan min an-nahaari yata'aarafuuna baynahum qad khasira alladhiina kadabuu biliqaa'i illahi wama kaanuu muhtadiin maalinta aan soo kulminayo ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala waxay u maleeyaanba inaysan maqnaynba hal saacata oo maalinta ka mid ah يتعارفون بينهم ويسكرنا وليبا قف والبقف كويقين وقرنيا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ويلو بينو ليه كو محيها ان بينيي الهي لكل كيسه ما رايسان هين كو هانوسن والعياذ بالله marka walaalayaal saacada qiyaamo sidaas ay muhiim u tahay
oo runtii ay tahay arrin aad u culus oo diinta islaamka ku culus. ilaahay ha nagu anfaco, ilaahayna ha naga dhigo kuwa yaqiin ka dhigta. wasalaamu calaykum.